baryahan dambe magaalada Muqdisho waxaa la isla dhex marayaa hadalhaynta ah in uu jiro nambar dibadda ah oo dadka soo wacaya qofkii ka qabtana uu la kulmayo wax la yaab leh. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Walaalkiin Abu Wala Sanfalaha degmada Walweyn ma bas in sheegay widaad oo taabaan ay wadna hadda mobile lay dhig saarati maana hoogshay waa ku dhiiri marka insha Allah muslimiinta ma leeyaa mobile aygaas isku ilaaliya marka insha Allah gabadhan taabaan way hadda waxay leeyihiin nambar dibadda ah oo ay ku jirto ibir ayaa ku soo wacaya haddaad ka qabatana dhagaha sanka iyo afka ayaad dhiig ka sii deynaysaa kadibna qofku sidaas ayuu ku dhimanayaa. waxaan wadada gabar mobilkay qabatay ku qarxay waxaan wadada maanta bukaanka koowaad noo yimaado weeye gabadha mobilkay waa ku qarxay ayadoo dhan waa dibirta naqaska ku xirmay. ma ahan markii ugu horeysay oo sheekadan oo kale ay ka dhacdo magaalada Muqdisho sanadkii tagay ee 2021 waxa aad loo hadalhayay nambar dibadda ah oo dadka soo wacaya isla markaana qofkii ka qabta lala baxayo dhammaan lacagta ugu jirto teleefankiisa. run ahaantii waa wax dhici kara dunidan maanta aynu joogno wax kasta ayaa laga filan karaa. dhinaca kale ninkii sameeyay teleefan kula hadli karto qof jooga wadan kale waxba lama ahan inuu sameeyo barnaamij uu kula bixi karo lacagtaada, balse arrinta la yaab kale ayaa ah in gebi ahaanba sheekadani ay ahayd wax kama jiraan. sidoo kale sanadkii ka horeeyay ee 2020kii waxa magaalada qabsatay sheekada ah in ay magaalada soo galeen dad la dhaho Juudaanley kuwaas oo cuna ilmaha yaryar. dad waaweyn ayaana TV-ga ka hadlay ayagoo dhahaya anaga aragnay asagoo cunaya. si la mid ah sanadkii 2019kii waxa aad la isla dhex marayay cirbad la isku durayo. tusaale qof ayaa ku imaanaya wuxuuna ku leeyahay wiil bajaajle ah ayaa cirbad lagu muday haye gabar uu mootada ku waday ayaa ku mudday haye kadibna waa la qabtay waxaa la ogaaday gabadhu inay qabto cudurka AIDS-ka sidaasna ay ku faafinaysay. waxaad weydiinaysaa si aad u hubsato oo xagee ka dhacday arrintan soo ku leeyahay tarabuunka dad hadda ka yimid ayaana sheegayay. isla markiiba mid idinla fadhiyay inta warka la sheegayay ayaa qaadaya warkii wuxuuna u geynayaa dad kale asagoo leh anaa arkayay tarabuunka ayay ahayd iyo waxyaabo kale oo asagoo ku sii darsado. sidaas ayay sheekadii ku faafaysaa dadkii oo dhanna waxaa gelaya argagax iyo shoog. cabaar ka bacdina waxaa la soo sheegayaa kiisas hor leh dhammaan waxaasuna waa wax kama jiraan. waxaa xaqiiq ah dhammaan sheekooyinkan inay yihiin wax dad alifeen culimaduna marar badan ayay ka hadleen been abuurista noocan oo kale ah. waa khuraafaad waa feeg wax kama jiro haba yaraatee halaga koro waxaa leeyahay beenti aha inay weli qarnigan sii socdaan waxaa leeyahay khuraafaadka weli inay qarnigan sii socdaan macquul ma aha hadday jiraan Soomaali ma ay noolaateenba. haddaan u gudubno arrinta hadalhaynteedu hadda ay taagan tahay ee ah inuu jiro nambar ku soo wacaya haddaad ka qabatana aad dhimanayso farsamo ahaan ma dhici kartaa arrintan. wadamo Afrikaan ah ayay sheekadan oo kale horay uga dhacday. waxaa jirtay sanadkii 2017 qof u dhashay dalka Nigeria ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray in 11 qof ay dhinteen kadib markii ay qabteen nambar dibadda ah wuxuuna soo qaatay sawir dad dhintay. wakaaladda wararka ee AFP ayaa dhacdadii baaritaan ku samaysay waxaana la ogaaday in sawirku uu yahay 11 caruur ah oo duufaan ay leysay. ma ahan wax farsamo ahaan dhici kara in qof teleefon lagu dilo. haddii ay dhici lahaydna maba jireen wadan kale ku duula iyo qof la dagaalo qof kale waxaa la isku adeegsan lahaa wicitaan oo kaliya. ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena channelka aad subscribe saarto. mahadsanid.